wargeyska New York Times oo ka soo baxa Mareykanka wuxuu daaha ka qaaday in hay'adaha sirdoonka reer galbeedka ay ogaadeen in Iran waqti xaadirkan aysan ku mashquulsanayn bacriminta barnaamijka nuclear-ka. haddii bishii Juun ee sanadkiina dhaafay Iran loo weeraray sabab la xiriirta in horumar weyn ay ka sameeyeen horumarinta ama bacriminta barnaamijkooda uranium-ka si ay u soo saaraan nuclear, hadda taasi way ka duwan tahay. shuruudo ayaa miiska la soo saaray waxaa la yiri waa inaad ka gudubtaan ama aad ka tanaasushaan dhammaan qodobadan haddaad ogolaataan cadaadiska waan idinka dhaafeena. Iran meel kasta cunaqabateen ayaa laga saaray, banaanbaxyadii gudaha ka dhacayeyna reer galbeedku waxay aaminsanaayeen inay horseedi doonaan kala qaybsanaan iyo daciifidda awoodda gudaha ee dowladda Iran. sirdoonada qaarna waxay la wadaageen madaxweyne Trump in xilligan fursadda la haysto Iran daciif gudaha ay ka tahay, sidaas darteedna laga faa'iideysto fursadaasi oo la weeraro. laakiin Iraaniyiinta arrinka gudaha waxaad moodaa inay iska xalliyeen. haddii dagaal dibadda uu yimaadana waxaa la hilmaamaa khilaafaadka gudaha, wax walibana waa loo midoobaa. dhanka kale waxaa soo baxaya madaxweynaha dowladda Turkiga ama guud ahaan dalka Turkiga dadaal badan inuu bixiyay iyo dowlado kale oo gobolka ah. Erdogan ayaa la sheegay in uu madaxweyne Trump hordhigay dalab ah in isaga madaxweynaha dowladda Iran iyo madaxweyne Erdoganba telefoonka ay ku wada hadlaan, wax waliba oo adagna laga gudbi karayo haddii wada hadal la ogolaado. laakiin Trump shuruudahaasi haddii aan la meelmarin aniga cadaadiska ayaan sii kordhinaya ayuu yiri, ilaa haddana jawaab lagama hayo. sidoo kale mas'uuliyiinta dowladda Iran dhankooda hanjawaadihii caadiga ahaa ayay weli sii wadaan. waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran Abbas Araghchi, si gaar ahna telefishinka CNN qaybta afka Turkiga ayuu wareysi siiyey maadaama uu ku sugnaa magaalada Ankara. wuxuu yiri bedelidda la doonayo in la bedelo nidaamka dowladda Iran waa qiyaali ee dadka qaar ay ku nool yihiin. amnigeenuna aad buu muhiim noogu yahay, waxaan diyaar u nahay inaan la dagaalano koox kasta oo argagixisa ah. hadalkan waxaa ka sii adkaa hadal uu shalay u jeediyey oo uu yiri marraba kama gorgortami doono in aan rumayno riyada ay dad kale ku riyoonayaan oo ah shuruudihiina loo soo bandhigay sidooda inaan ku aqbalno, mana aqbalayno, waa inaan miiska isugu imaanaa, la is ixtiraamaa, qof walibana shuruudihiisa miiska uu soo saaraa. dhinaca kale marka waxay warbaahinta dowladda Iran daabacaysaa macluumaadka ku saabsan in la bilaabay tababar la siinayo ciidanka gaarka ah ee ilaalinaya hoggaanka ugu sarreeya Iran, tababarkaasi oo sidii looga hortagi lahaa ciidanka Mareykanka si gaar ahaaneed kuwa isticmaalaya diyaaradaha helikobtarada. ciidanka gaarka ee dowladda Iran marka waxaa la sheegay hadda in loo tababarayo sidii looga hortagi lahaa howlgal kasta oo ciidanka ay ka fulin karaan gudaha dalka Iran. diyaaradaha helikobtarada iyo sida looga hortago dhaqdhaqaaqa, sida loola socdo ciidankaasi, halka loogu dhuuman karayo, sida loola dagaalami karayo. casharkaas ayaa lagu waramayaa hadda in loo tababarayo sida wargeyska Iran Observer uu baahiyey oo aan ka soo xiganay. dhanka kaleetana waxaa lagu waramayaa weli heegin inay ku jiraan ciidanka ammaanka ee dowladda Iran, iyada oo mar waliba hadallada ay sii xoogeysanayaan. Trump aad moodo waxoogaa hadalladiisii inuu wax ka bedel ku sameeyey, si lamid ah sidii uu sameeyey bilowgii bishan aynu ku guda jirno, xilligii la filayay in Iran mar kale weerar lagu qaado. hadda miiska wada hadalka miyaa toos loo aadayaa mise Ruushka iyo Iran iyo sidoo kaleeto dowladda Shiinaha dhoolatus military ay doonayaan inay ka sameeyaan maalinta berita ah gacanka Hormuz. taliska dhexe ee dowladda Mareykanka ayaa waxay soo saareen marka qoraal digniin ah oo ku saabsan ciidankaasi dhoolatuska sameynaya. waxaa la yiri waa in ciidankaasi ay si taxadar leh dhoolatuska military ooga sameeyaan gacanka Hormuz, ayna ka fogaadaan in qalalaasa uu ka dhaco gacankaasi Hormuz. waa maxay waxyaabaha laga baqanayo? sida laga soo xigtay qoraal barta Twitter-ka ama X lagu baahiyey oo xarunta taliska ciidanka Mareykanka ay baahiyeen, waxa ay ka digeen dhoolatuska military ee wadajirka ee beri laga sameynayo gacanka Hormuz inuusan keenin qaadida tallaabo halis gelin karaysa xorriyadda maraakiibta caalamiga ah ee isaga kala gudbaya gobolka. waa xorriyadda ereygaas ayaa la isticmaalay, xorriyadda maraakiibta caalamiga ah halka ay isaga kala gudbaya. aan wax yar dul istaagno. marinka Hormuz waa marin cariiri ah, waxaa ku sugan maraakiib dagaal oo aad u tiro badan. Mareykanka maraakiib ayaa kaga sugan, sidoo kaleetana maraakiibta ganacsiga ee Mareykanka halkaasi waa ka gudbaan. maadaama marka dhoolatuska military ee Shiinaha iyo Ruushka iyo Iran si wadajir ah u sameynayaan, waxaa qasab ah halkaasi diyaarado drones ah la keeno, maraakiib dagaal halkaasi ay yimaadaan, kuwaasi oo si wadajir ah dhoolatuska u sameynaya. Mareykanka muxuu marka ka digayaa? wuxuu ka digayaa in ugu yaraan doomaha
droniska ah ee ciidanka dowladda Iran iyo doomaha kale ee dheereeya ugu yaraan diyaaradaha droniska ama agab ay isticmaalaan ciidanka dowladda Iran inay u soo dhawaadaan maraakiibta dagaal ee dowladda Mareykanka oo haddii loo soo dhawaado waxay noqon kartaa in xog ugu yaraan la ururinayo oo qalad loo fahmi karayo soo dhawaanshahaasi Mareykankana oo action ama ficil uu qaado marka taasi ay ka digayaan waxay leeyihiin iyaan halkaas halis laga abuurin bayaanka marka oo la soo saaray maanta oo sabti ahayd waxa lagu yiri taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka wuxuu ugu baaqayaa ilaalada kacaanka ee dowladda Iran inay dhoolatuskan badeed ay u fuliyaan si ammaan ah oo xirfad leh iyana la soo dandansan iyana loo soo dhawaan anaga halkan waan joognaa iyana xasarad la abuurin ma kula tahay marka digniintan in sidan ay ka dubanaan lahayd ama hadalkan uu sidan ka dubanaan lahaa haddii kaliya dhoolatus gaar ah ay sameyn lahaayeen ciidanka dowladda Iran oo Ruushka iyo Shiinaha ay halkaasi ka maqnaan lahaayeen maalmihii ugu dambeeyay dhaqaaqay gobolka ka soconayay Shiinaha diyaarado badan ayuu gobolka u soo diray maantana dhoolatuskaasi ayaa loo diyaar garoobaya maalinta bari ee Axadda ah ayaa dhoolatuskaasi la filayaa inuu dhaco dhinaca kale madaxweynaha dowladda Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu yiri Israa'iil reer Yurub iyo Mareykanka waxay doonayeen in qaralaasi gudaha la abuuro dagaal sokeeyana uu dhaco maxay yeelay buu yiri banaanbaxidii dhacayay ay doonayeen in dadka ay sii kiciyaan hadallada ay adeegsanayeen marka la fiiriyo waxayna doonayeen inay gudaha fidna ka abuuraan reer Yurub Israa'iil iyo Mareykanka haddii ay yihiin isla markaana dadweynaha ay ku dhiirigeliyaan qalalaasihii iyo burburintii xarumaha muhiimka ah marka wuxuu yiri taasi oo aan ka hortagno waan ka hortagi doonaa laakiin waxaan uga digaynaa buu yiri inay dib u eegaan sida ay ula dhaqmayaan shacabkeena una dhiirigelinayaan wuxuuna tusaale u soo qaatay hadaladii kala duwanaa ee madaxweyne Trump ka soo yeeray intii mudaharaadyadu ay ka dhacayeen gudaha dalkaasi Iran kulamo aan kala joogsi lahayn ayaa ka soconaya gudaha dalka Iran sidoo kale dhaqdhaqaaqa military ciidanka ay sameynayaan iyo tababarka iyo hubka la kala wareejinayo iyo waa wax iska caadi ah maalmihii la soo dhaafay dhanka kaleeto waxaa soo baxaya in mas'uuliyiinta dowladda Iran ay la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan Ruushka Ali Larijani oo kamid ah la taliyaasha Ayatollah Ali Khomeini ayaa lagu waramayaa inuu magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin iyadoo aad moodo mas'uuliyiinta dowladda Iran inay galaangalkooda aad u xoogan yahay oo Pezeshkian uu telefoonada kula hadlay Erdogan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iran oo socdaal kala duwan gobolka ku tagayo la taliyaal sarana loo diray dhankaasi Ruushka Shiinahana telefoonka waxa la sheegay inuu san ka bixin iyadoo sidaas ay tahay dhinaca kale waxaad moodaa Iran in cunaqabateyntii la daba joogo oo dhawaan waatii wasiirka arrimaha gudaha iyo mas'uuliyiin kale cunaqabateyn la saaray horeyna hay'ado kala duwan ayaa loo saaray midowga Yurubna waxay cunaqabateyn ku soo rogeen oo argagixisana u aqoonsadeen ciidankii ilaalada kacaanka ee dowladda Iran waxa laga shaqeynayana hadda waxay tahay in gudaha Iiraaniyiinta la kala furo maadaama ay yihiin dad isku xiran nidaamka dowladda Iran iyo sida uu shaqeeyo aad bay u adag tahay inaad fahanto marka qaar maxay yeelay waa dad aad isugu xiran kooxo kala duwan haddana mar walba Ayatollah Ali Khomeini ayaa hoggaanka ugu sareeya ah welina waxaa soconaya digniinaha kala duwan oo ay soo saarayaan qaar ka mid ah dowladaha gobolka gaar ahaan kuwa Carabta ilaa iyo 3 dowladood ayaa wargeyska The Political wuxuu daaha ka qaaday in madaxweyne Trump weli uu uga digayaan weerar lagu qaado dhankaasi iyo dowladda Iran adigana maxay kula tahay qaybta hoose ugula wadaag nabadi